بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. halkan waxaa ka hadlaya Cumar Cawaale Ibrahim afayeenkii qurbo joogta beesha ciise. Wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. maanta waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan lugaya iyo sayla iyo beesha Cabdiraxmaan Caleeye oo ka hadashay usuli shirka ku qabsadeen. waxaan leenahay hambalyo qurbo joogta beesha ciise aad iyo aad bay nigu dirsatay odayada halkaa fadhiistay reer Cabdiraxmaan Caleeye sanado dhan bay dhaxantu xaggiina naga soo gashay maantase waa nigu diirsanay waa ilaahay mahadii arrinta aad ku dhawaaqdeen gobolkii iyo dadka inay dhulka lugayo iyo geerisiyo garbadadar iyo maaragtay aynay wax ka qabsadaan doonaya dadkaas dhulka waxa keenay reerkeena keenay maantana inagii bay nagu durduriyayaan waxa weeyaan inaan danteena ka shirno oo maanta aad inagu iska gijisaan dhibaatooyinka nafood soo saaray hambalyo baan leenahay aad iyo aad baan hadalkiina qurbo joogta beesha ciise aad baan ugu diirsanay sanado badan ayaan niga sugaynay inaad saa u hadashaan adeerayaal hambalyo baan leenahay ilaahay caafimaadka nii daayo waxa aan doonaynaa halka aad ka tiraadeen Caleeye shiraya shirka Caleeye anagu waxaan rabnaa inuu ciise weyna shiro ciise weynaanan ka jecelahay Caleeye in badan buu sutaare isku dhigay sutaaradiina maanta wali way jirtaa dee haddaad real wax ka qabanaysaan waa guul waxaan rabnaa kunka qof ee Jabuuti ku xidhan ee wiilka adeerka u tiina xidhay ee dadka dumar iyo caruur iyo odayo iyo wadaadda intaba leh horta ka soo daaya markaad intaas soo daysaan ayaad Caleeye u imanaysiin inta Jabuuti nin maaragta Cabdiraxmaani oo dadka ku qalayo oo wuxuu ugu sheeganayo oo xuquuqdii dadka ku dulmayo ee reer Cabdiraxmaanow ciise weyne ayaa maaragta arrinta inaga raba inaad wax ka qabataan arrintaas aad iyo aad baan igu leenahay hambalyo arrinta aad lugaya reerkaad doonaya inay inigoo nool dhulkiinii qaataan dhulkaana beesha ciise reer Cabdiraxmaan bay ku ogeen waa sida odayguba yidhi laxaarta buurta iniga ayaa linigu ogaa inigaani dablishu dhinaciina nagaga timid waa ilaahay mahadii haddii maanta aad sara kacdeen oo dantiina garateen reerku Jabuuti unbay isku haleeyeen dhulka kale inuu manaafacaad leeyayba may moodeen laakiin Jabuutina maanta ilaahay nabad ha yeelee waxaan ka tabanaynaa inaa meesha xaqdarra ka socoto ina reer Cabdiraxmaan ina gacanta ku haya ninkaanan 7 sano xaqdarradii socotay baa ilaa maantana socoto haddii adeerayaalow wax qabad aad leeymateen waa nigu diirsanay laakiin si cadaalada si daacada ciisanimo ah haddaad u socotiin ahlan wasahlan qalbi furan niyad furan ayaan leenahay ku soo dhawaada halkan waxaa ka hadlay Cumar Cawaale Ibrahim qurbo joogta beesha ciise afayeenkii oo inile guuleysta shirarka dambe qabanaysiina shirka casbuli ka dhacay doona bisha February buu soo bilaamayaa waxa weeyaan waa inaad ka qayb qaadataan shirka laba ee doonaysiina eelgaal baa ahayd saldhigii abidaba lagu shiray saldhigii eelgaal inaad fadhiisatiin ciise weynana go-aan ku soo saartiin ayaan dalbanaynaa wabilaahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.